kulanti haboon meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo la yeelanay gudoomiyaha garabka haweenka ee wadanka Jarmalka ee xisbiga wadani Maryan Axmed Cali waan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka marka hore aad baad mahadsantiin hodan Saciid aad iyo aad baad mahadsantahay hadaynu guda galo waraysigeena su'aasha ugu weerarsan ku weydiinaya waxay tahay xillimaad soo gaadhay wadanka waxaan imid Hargeysa 7 January baan imid marka muxuu daanay safarkaagani safarkaas waxa safar iyo private oo xagga family-ga baan u imid imise laamood ayaad ku leedihiin wadanka Jarmalka xisbiga wadani waxaan ku leenahay 4 laamood anu marka waxaan ay gudoomiyaha garabka haweenka guud ee wadanka Jarmalka marka 4 laamood ayaan ku leenahay isla Jarmalka ha laba laamoodna hadda ku tira jirnay inaan maxay furno laakiin in ka tayta lahaan 4 laamood baan nooga furan wadanka Jarmalka sidoo kale wadamada Yurub to kale meelahood ku leedihiin wadamada Yurub waxa Yurub xisbiga wadani meel walba ku leeyahay UK oo kale malaha 22 Switzerland Holland Denmark Yurub oo dhow ku wada leeyahay xisbiga wadani lama badan ka furan adiga Maryan xilli ma kugu dambeysay wadanka anu wadanka waxaan imid barigi dhaweytii golaha dhexe waan joogay ee October lagu qabanayay 7 October baan imid si aan uga qayb galo shirkii golaha dhexe waan ka qayb qaatay marna waxaan mi 2013 laakiin dhawaan ahaantii imka laba bilood baa u dhaxaysay difference intii aan imid hadda maxaa kugu la yaabadnaa intaad wadanka joogtaa horta airport ka Hargeysa marka aan ka soo dugo waxa iigu yaabka badan waxay tahay marka shandada maartay qofka ay soo diga maartay waxaad arkaysaa xamaaliyiintiyo shandadaadii la kala yaacayo ana qaadayo isku laynayo iyo muxuha laakiin waxaan arkaa in horumar ballaaran wadanka uu gaaray waxyaalo fara badan aan ku arko horta taas marka qofku markuu ka soo digo airport-ka taas uu la yaabaya gudaha marka magaalada soo gashana waxyaalo fara badan baa aan arkay maxaa kamid ah waxyaabaha aad aragtay waxyaalaha waxa kamid ah horta waxa iga yaabiyay telefoonkan lacagta lagu shubanayo saadka waxa weeyaan anagu xagada bangiyaan isticmaalada card bangi gashan sabin bad ku garaacaysaa waad kala soo baxaysaa laakiin lacagtan hawada maraysa telefoonka ku shubay talabad hadii uu telefoonkii chargerkii ka dhaco dabkii ka dhaco oo aad ama taxi soo qaadato ama istirada wax iibso xorta dibkeeda leedahay la raadisaa ama inkastoo isaga sidoo inta badan mararka qaar kood ay u badan yihiin oo ay hayaan bade ay chargerkii ugu bajiraba ay ku gelinayaanba marka lacagtaas horta horumar ay aad ugu gaarin weeyaan laakiin magaalada Hargeysa waxaad moodaan ka yaabay waxa cajiiba waxaad moodaan inaad Mareykanka joogto because wax walba dollar baa lagu qiibsanaya sixir barar badan oo ka dhacay iyadoo wadankiina ayaa baara xunay ka jiraan dadkii mushaharkii dhaqaalaha qaadanayeen dadka lacagta ay isticmaalayeen isma laha way kala duwan tahay run ahaantii marka horta saadkaasi waa horumarka ay gaadhay Hargeysa Somaliland ay gaadhay waana wax lagu farxo waxyaabaha ku soo jiitay maxaa kamid ah iyaguna waxyaalaha hore ugu ogeyn oo kale runtii wadanka aad buu dhismay bacmushtar fara badan baa ka socda business badan baa ka socda kawaadhi fara badan dadkii nolol waxaad moodaysaa marka halkan joogto oo kale inkastoo dabaqadu ay kala duwan yihiin dadku qaarkoodna ay leedayihiin qaarkoodna ay hooseeyaan dabaqadii dhaxaaji ayaa ka baxday moogtay dhexda laakiin waxyaalo fara badan oo ay soo jiitay horumar fara badan oo xaqii hoteeladii restaurantiyadii gawaadhidii dhismihii guryaha waxaad moodaa marka joogto uma baahnid barnaamijka Yurub ee dhaqaalihu ma xogaa waxaad moodaa inuu aad u kaxsan yahay dadkii aan isku dabaqada aanay ahayn marna waxa yaaba marka gawaadhida la wato oo kale gawaadhidii baa farabatay ka bacdina dadkii waxaad adiga gaarigiiba waxaan ku wuri ay ku adag tahay anigu inaan Hargeysa gaari ku wadi lahaa because gaarigii qofkii kaama baydayaba waa xogaa wadooyinkii baa xogaa dareemaysa inay ay maxay aan hagaagsaneen laakiin sida kale wadanka horumaraad ballaaran buu gaaray waxaad sheegtay in wadanka horumar ballaaran gaaray intaasoo dhalinyaro mar walba jecel inay tagaan wadamada dibadda oo soo hayaama marka wadanka ayaa ka faa'iido badan noolan kartaa wadamada qurbaha wallahi kale waxaan qabaa anigu intii imka anigu wadanka Jarmalka waxaan joogay waxaan tagay 19 baan tagay 1991 24 sano joogay waxba halka kuma taagnaanaysa hadaan maanta joogi lahaa Hargeysa ama aan Somaliland joogi lahaa waxaan qabaa inaan horumar ka ballaaran aan gaari lahaa marka waxaan aaminsanay dhalinyarada tahriibta u baxaysa waxba ma yaalaan Yurub waa inay nala arkeen dad badan baa anaga Jarmalka noogu yimid oo dhalinyaro ah oo dhibaato Liibiya ka soo gaadho Talyaaniga ka soo gaadho noo yimid waxaan aaminsanay dalka hooyo wax ka wanaagsan ma jirto
halkan buu qofku wax ku noqon karaa laakiin halkaa wax kuma noqon kartid taasina anigu aaminsanay dadka marka dhalinyarada qurbaha joogto soo cararaysa imanaysa maxay wadamada Yurubta iyagoo wadankooda wax ku baran karo jaamacada ku dhigan kara waxbarasho ku heli kara waxaan anigu aaminsanay inaan u wanaagsaneyn in halka soo tahriibaan qofka wadankiisa wax ku fiican ma jirto hawa aad u fiican oo macaan oo haysanaa ilaahay waa aad u fiican Maryan haddaan su'aal kale ku weydiiyo ku noqdo garabka haweenka baad tahay wadanka Jarmalka maxaad u qabataan oo kale haweenka Jarmalka jooga marka la leeyahay garab haween waxa weeyaan garabka haweenka guud baan ahay marka 4 laamood baan nooga furan 4 laamood ee nooga furan laam walba waxay leedahay garab haween waxaan leenahay gudoomiye guud oo wuxuu degan yahay mudane Xasan Mataan wuxuu degan yahay wadanka wuxuu degan yahay magaalada Munich buu degan yahay Muusha buu degan yahay marka garabyada haweenku waxa weeyaan gudoomiyaha ayaan la shaqeynaa laam walba gudoomiye leedahay marka gabadha garabka haweenku waxa weeyaan qaban qaabada marka xaflada la sameeyo xaqii maxay hayday isku keenidii wacyigelintii dhiirigelintii xisbiga dumarkii oo hadii jeer wadarto imka xisbiga dumarkaaba u badan ba oo qaban qaabada u badan ba hadii jeer imka waxa xisbiyada maxay ka hargaarsiya waa dumarka marka garabka haweenku waxa weeyaan wax way qaban qaabinaysa way gubaabinaysa waa campaigner dhanoo xisbiga dadka soo jiidaysayo anigoo kale waxa laga yaabaa 10 naagood ama dumar saaxiibada ama asxaabtayda oo kale inaan mararka qaarkood kulada xisbiga ku soo biro wadani waa caynkan kan uu yahay waxaan uu qabanaya dumarka waxaan uu sameeyaa marka dumarkaygaas waxaan soo jiidanaa anagu marka garabka haweenku saasaan qaabilsanahay xisbi ahaan hadda ku guuleysataan doorashadii waqti bay naga xigay imka haddaad ku guuleysataan xisbi ahaan maxay isleedin dumarka wada qabanaysaan kolley de waxa sida anaga noo ballan qaaday inkastoo ay nagu yartahay aynu waxana lagu yiri dumarka 30% baa la siinaya laakiin xisbi ahaan hadaan ku guuleysano waxyaalo fara badan baan ka bedeli doonaa oo doonina inaan dumarka wax ka siino oo dumarka hadii jeer xilka waa lagu yareeyaa hadii jeerna waxa xisbiyada soo saara waa dumarka haday dhaqaale noqoto iyo hadii ay noqoto maxay hadii fanba intaba anaga soo saarna marka xisbi ahaan waxaan rajaynaynaa dad dumarka inaan wax u qabano wasiirada ka qayb qaadano waxyaalo fara badan aan ka qayb qaadano ayaan rajaynaa hadaan xisbiga wadani aan soo baxno hadii ilaahay yiraahdo maxaa waanahay dumarka aad u diraysaa ama oranaysaa xisbigan waxa soo idin qabanaya waxa soo qabanaya ku soo biira dumarka adigu Soomaaliland iyo kuwa qurbaha joogaba waxaan ku waaninayaa oo u sheegaya isbedel doon inaynu u baahanahay xisbiga kulmiyana iyaga laftigood waxyaalo badan bay wadanka u qabteen waana ugu hambalyeynaya madaxweynaha Siiraayo iyo madaxdiisaba waxaan si aan dumarka ugu baaqayaa kullay isbedel waa loo baahan yahay marka dumarka waxyaalo fara badan ayaan u furaynaa dumarka waxyaalo badan baan u qabanaynaa marka waxaan jeclaan lahayn inay xisbiga wadani garabka siiyaan oo ay codkana siiyaan ayaan kula talinaya waxaan soo gaarnay marnay barnaamijka gabagabadiisa ama gunaanadkiisa fursadii u dambeysay baan ku siinayaa yaad halkan ka salaami lahayd ama wacyigelin u diri lahayd dhammaan madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro iyo hogaamiyaha Xirsi Xaaji Cali iyo Cabdiqaadir Jirte gudoomiyaha ku-meelgaarka Cabdiqaadir Jirte iyo gudoomiye ku-xigeenka musharaxa adigu xisbiga wadani gudoomiye maxay ahayd xubnahooda oo dhan iyo madaxdooda dhammaan ka salaamaya gabdhaha garbiyada haweenka dhamaantood baan wada salaamaya dadka xisbiga igula jira iyo dadka xisbiga maxay ahayd qaabilsan oo dhan waxaan kula ka salaamaya familygayga gaar ahaan waxaan ka salaamaya aabahay Axmed Cali waxaan ka salaamaya walaaladay oo qurbaha jooga walaashay Khadra Axmed Cali iyo walaashay Maxamed Anis Axmed Cali waxaan kula ka salaamaya caruurtayda oo joogay guriga marka saddexda hablood waxaan kula ka salaamaya walaaladay oo dhan oo familygooda halkan wada jooga gaar ahaan Nimcaan Nuux habartii Xalimo Cilmi iyo Ilma Nuux Muumin oo dhan ilmaabtiyada Ilma Xasan Cilmi dhamaantii wixii familygayga muuqayga magacayga garanaya oo dhan ma wada salaamaya dhamaantood idina aad baad mahadsantahay oon kaaga mahadcelinayna waqtigaaga qaaliga ah ayaanu nasiisay waraysigan ku qaadno aad baad mahadsantahay hodane iyo inanka barnaamijka hogaaminaya Maxamed Cabdi isagana waad u mahadnaqayaa dhamaantiin waad mahadsantahay